ولا معسلوياش إني بوبوني أنا روان هاي صوري أصحابي أنا أبي عايسدو سنكي عايسدي جرير ودن محاو عيني قبر جرير حدي شرموط أهالي هالدبقية نسالي هالدبقية شك شوكوي عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhageystayaal meel walba waa kala joogtaan rag iyo dumarba waxaa idin leeyahay soo dhawaada had iyo jeer waxaad nooga barateen baryahani inaan ka hadalno arrimaha ka jira Soomaaliya ama bulshada ama dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ay isku hayaan iyo habka ay ugu dhaqmaan social media haddaba in badan waxaan soo qaadanay dumar badan oo ka hadlaya ama dumar badan oo social media qaab qaldan u isticmaalaya maalintii ugu dambeysana ama shalay ahayd aan ku soo qaadanay gabar Soomaaliyeed oo Rabbi qaab ugu abuuray dadku ku aflagaadeeyaan maanta waxaan idin la soo wadaagi doonaa insha Allah gabar iyadana ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee bulshada Soomaalida ee ku xiran ama kuwa TikTok aalada isticmaala ee iyagana ula dhaqmaan qaab daran kuna caayaan meeshii iyo nasabkii oo Allah ka dhaliyay haddaba nasabka iyo qabiilka ma aha mid la isku caayo qof waliba qabiil ayuu ka dhashtay mana ahayn mid la isku caan jiray ama la isku yasi jiray bulsho dhexdeeda haddaba maanta waxaan ku soo qaadadeynaa gabartan magaceeda lagu magacaabo Maryan Anjali kadib markii aan ku arkay social media ama aalada TikTok oo dhowr jeer ugu soo noqnoqotay inaan fiidiyoyadeeda community-ga aqriyo aan ku arkay dad badan oo markaasi u gafayo qoomiyad dhan oo markaasi jira oo ummadda Soomaaliyeedna ka mid ah haddaba waxaan isla fadaaqday doonaa fiidiyoyadeeda qoraaladeedana waan idin wadaagi doonaa haddii ay tahay markii kugu cusbeed oo aan soo booqatay ha ilaawin channel-kan inaad subscribe saarto halka hoosana aad community-ga la soo wadaagto like iyo share-kana aan u dhiirigeliso aad baad u mahadsantihiin dhageystayaal haatan ku soo dhawaada insha Allah 16, 17, 18, 19 waxaan soo qoray baad ku fahantiin boos wax kaleeto ma bahaysiin waxaan gudaha u gali doonaa aalada TikTok ayaa gudaha u gali doonaa gabadhan aad u jeedaan maasha Allah quruxda iyo heebada oo alla siiyay dadka uma jeedaan ee waxay ku caanayaan nasabkeeda nasabna wax la isku caaya maaha maanta jareer hadduu Ilaahay ka dhaliyay waa qabiil jira oo ummad Soomaaliyeed ka mid ah jareerna ma aha wax ceeb ah mana aha wax laga xishoodo mana aha wax markaasi nasab dhiban ah ma aha waa dad waa qoomiyad waa qabiil la yaqaano oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed Ilaahay uu ku dhaxbeeray maanta qabiilka tahay in lagu wacaayo oo lagu dhaho reer hebel tahay isaana tahay waxa weeye weligeed ma jirin ma san dhicin waana la yaabanahay runtii horta qabiil kale kama dubana qabiil kalena wax ma dheero laakiin ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay sameynayaan inay iyaga kuwa la mid ah ee liidaan iyagana iska dhiga kuwa ugu sareeyo laakiin yawmal qiyaama ninkii jannada gala kii laga waayana kaas ayaa nasab dhiban ah haddaba gabadhaani fiidiyoyadeeda inta badan waa fiidiyoyo ay ku soo qaadatay heeso iyo sheekooyin iyo waxyaabo la mid ah balse ummadda Soomaaliyeed gabadhan jadwalkeeda iyo qaabka ay wax u sameynayso iyo quruxda ay basiyay ma eegayaan ee waxay ka eegayaan qabiilkeeda ayay ku caynayaan oo ay ku aflagaadeynayaan laakiin iyadu ma aha mid dhag iyo jalaq midna u siisaba oo arinteedii ay iska sii wadataa qabiilka oo lagu wacayana ceeb maaha qof walbana wuxuu u leeyahay qabiil oo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ummadiisa ku kala u ka sheegay ama Qur'aanka ayaaba lagu sheegay si ay markaasi qoomkaasi ay isku wada gaastaan oo markaasi ay macnaha isku aqoonsadaan qabiilna wax problema oo dhibaato leh ma laha haddii ay jareer tahay iyo abgaal habargeeda isaaq daarood midkii aad tahayba mid nasab ah ma jiro oo ummadda unba ka kala dhigayso inuu jareerna wax jira ahayn qabiilada kalena ay yihiin laandheerayaal haddaba arrintaasi waa arrin aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed uga soo badanayso ahna wax aanan dhaqanka Soomaalida aana ku jirin waagii horena ma uusan jirin qabiil la kala saaro iyo dad la kala geegeeya laakiin sabanadani dambe ayaan bilownay in aan sameyno dadkii nolol noolaa ee walaalaheena ahaa nala dhashtay inaan ku kala geyno qabiil oo dhahna kana waa sidan kana waa sidan haddaba warkayaan idinku dheereynine
waxaan gali doonnaa fiidiyowgii aan hore idinkula soo wadaagnay qaybtiisii kale. halka kan waxaad ka arki kartaa fiidiyowgan ay gabadhaani soo dhigtay, waxaana ku qoran ama ay rebeliga ay ku soo qaadato qof ayaa u soo galay, magaciisana ma aanan ugu qordheen oo dadka mararka qaar dadka tiktok isticmaala magacoyadooda ma arkaysid. waxaa ku qoran oo halkaani oo aad ka arki kartaan aa kaga jeedaan jareerta waxaa lagu yaqaanaa kow jabiye bajiye gadow ayuu yidhi. kow bajiye gadow ayaa lagu yaqaanaa. bajiyo cid walba ayaa gado oo adigaba waa cuntaa, ma jareer ayaa tahay mise jareerta oo keliya ayaa bajiyaha cunta. labaala waa sadar aanan aqri karin balse idinka qof waliba indhihiisa ha ku arkee. saddexaadna wuxuu yidhi shaqaalaha guryaha oo ma jareer oo keliya ayaa ka shaqaysa guryaha, cid waliba ama qabiil waliba waa ay ka shaqeeyaan. dadka in ayaga wax loo gooni yeelay ma jiraan. afar foolxumo iyo timo xanja ah. taasi aad ayay ugu badan tahay ummadda Soomaaliyeed inay ku caayaan dadka nala dhashay. tan afaraadna wuxuu leeyahay foolxumo iyo timo xanja ah. foolxumadu ma aha kuwo loo asteeyo oo keliya qabiilkaani la yaqaano ee jareer. wuxuu leeyahay waa saaxiriin. marka waxaad ka arki kartaan halka ay gaarsiisan tahay ummaddan Soomaaliyeed kuna dhex jiraan bulsho aad iyo aad xumaanta u jecel, necabna in ummadda Soomaaliyeed ay mid noqoto. haddaba waxaan gudaha u gali doonnaa qaybtii community-yada dadkii iyo wixii ay ka jawaabeen. qof ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku soo yidhi dadka masaakiinta ka leexda, qof alla karameeyey ha caayina. qofkani waa qof dumara, waxay caynaysana waa isla qof dumara oo halkani waxa ay ku soo qortay inay sharmuuto tahay way ka muuqataa. dhillo waa la yaqaanaa, dhillo halaabtay dhaqankeedana sidan le waaye. isoo oy dhillo ayay leedahay waa qof dumara, waxayna caynaysaa qof kale oo dumara ayay dhillo ku tilmaamaysaa. dadka inta badanaa community-dooda waxaa ka arkaysaa oo keliya inay markaasi ku jiraan naciib qabiil, ayna u aflagaadeynayaan gabadhaani qabiilka iyo nasabka oo ilaahay ka dhaliyey. iyada ma aysan iska dhigin nasabkanna waxa u qoray oo eebbe xag eebbe ayay ka ahaatay. inaad jareer noqotona ma aha nasiib daro, oo jareer waa qabiil ka mid ah qabiilada ummadda Soomaaliyeed. in badanaa gabadhaani dadku waxa ay ku soo qaadataa community-dooda kuwa markaasi soo aflagaadeeya. haddaba halkaani waxaa idinkaga muuqda qofkii labaad oo ay ku soo qaadatay ama ay soo mashangaraysay adoo jareer ama tiktok iska duubay ayuu leeyahay. taasi waxay ku tusaysaa in markaasi ayba qof jareer ah uusan u ogoleen inuu isticmaalo aaladda tiktok-ga ah. taasina waxaa kaaga cad inay ummadda Soomaaliyeed weli ay jahli iyo aqoon dare ay weli dhex mushaaxayaan. markii aan gudaha usii galnana community-yada dhabtii ma jeclaysanaysid inaad akhrisid, wax la akhrin karana ma aha oo bulshada lala soo wadaagi karo. halka sare waxaa idinkaga muuqdo oo aad u jeedaan waad iska arki kartaan. ileen Soomaalidu isma jeclo ee waxay jecel yihiin hablo Soomaaliyeed oo sheegto inay yihiin nasab laandheerana ay yihiin qabiilada Soomaaliyeedna ay yihiin qabiilada ugu sareeya, haddana hoos seexda niman Nigeerian ah iyo kuwa South African ah iyo kuwa Jamaican ah iyo kuwo kaleba oo markaasi nasab dhiban ah iyo wixii ay ku dhashteen iyo qaabkii ku dhashteen waxay ku dhashteen inay xalaal ku dhashteen inay xaaraan ku dhashteen la kala garanaynin ayay hoos seexdaan oo haween walba ay ka soo hoos kacaan. haddaba dadkaani ayaa aflagaadeynaysan waa dad nasabkooda la yaqaano, waa dad diin leh, waa dad dhul iyo meel ay degaan la yaqaano, waa dad meel loo raaca leh. nimankan kale ee Afrikaanka ee Jamaicanka iyo Cameroonka aad guursanaysaan berina social media aad la soo fadhiisanaysaan markay idinka dhammaystaan ninkiibaa iga tagay baasaboor buu igu raadsanayay kadibna aad meelaha ka oynaysaan. waxaa ka wanaagsan inaad walaashato dadka walaalkaaga ah, kan walaalkaagana inaad aflagaadayso mid kale oo ajaanib ah oo asigaba aad la yaabaysid markii aad aragtid inaad hoos seexato kii ka wanaagsanayna aad aflagaadayso waa wax laga fiican yahay. waxaan ku dhex jirnaa soo qaadashada fiidiyooyadii ay dadkii markaasi ku soo falceliyeen kale ayaan soo qaadan doonnaa iyo qofkaani siday ay wax ugu soo qoreen. halka kan waxaa kaga muuqdo qof ay ugu qoran tahay Giral Power
jareerta si kastoo isku caddeeyaan inay jareer yihiin waa la fahmayaa. Kenya ayaad ka soo lumteen, baliis u laabta dadkiina Soomaali ha ceebaynine. Qofkaani waxay leedahay jareertu waa dad ka soo lumay Kenya. Haddaba maanta waxaa jira ummado badan oo Soomaali ah oo Kenya ku nool, weliba ha u badnaadeen ummadda Soomaaliyeed. Weliba maanta dumarkii Soomaalida ah waa kuwaani Kenyaanka hoos seexda, Kenyaankana ka soo hoos kacaan, weliba fiidiyooyo qaldan laga soo duubo iyaga oo si qaldan loo isticmaalayo lala soo dhigo baraha bulshada. Dhabtii waxaa yaab iyo amakaaga in qof kula dhashtay aad aflagaadeyso, mid qofkii kula dhashtay ka sii liitana aad sariir la seexato, aadna dhahdo beebigayga waaye, meelahana iska soo duubto fiidiyow aad isla soo dhigdhigtaan asigii iyo ayadii qofka aa wax ka sheegaysa iyo asigana uu ka fool xun yahay uuna ka fool daran yahay. Waa dhibaatadeeda. Marka ummadda Soomaaliyeed gabagabo waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaa u sheegayaa inuusan jirin qabiil kale ka laandheereysan. Jareerna waa dad la yaqaano, waa qabiil, waa qoomiyad dhul Soomaaliyeedna dega, ummad Soomaaliyeed ahna diin islaamnana haysta, inagana inaga mid ah oo waa dadkeenii. Haddaba haddii aa u malaynaysid inay dadkaani koyto yihiin adigana aad dhalad tahay, haddaba taasi niyadaada ka saar. Jareer waa dad la yaqaano oo culamo iyo caam iyo siyaasi ba leeyahay. iyaasan idinla tegin qabiilka qaabka daran ee aad isticmaalaysaan. wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qabiilka u soo saaro oo keliya in la isku garto ee ma aha in la isku adeegsado. waxaan idin leeyahay meel walba oo ay joogtaan ka waantooba cawaantinimadana aad ku jirtaan, ummadda cunsurinimadana kala dhexbaxa. waxa aad sheegtaan mar walba inay dadka kale ay yihiin dad cunsuriyiin ah, balse idinka aanan isku jeedina oo idinka ayaaba adduunka kow ka ah dadka cunsuriyiinta ah. waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idin leeyahay qabiilka ha laga waantoobo. jareerna maaha dad laangaaba, waa dad la yaqaano oo dhul iyo deegaanba leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.